qof miyaa qalbigaaga qaatay soo ma u baahan tahay inaad xiriir la wadaagto dabcan waa lama huraan qof inaad jacayl u qaado una baahato qofkaas inaad xiriirkaaga u bandhigato maalin un balse sidee ugu fikirtay qof aad hal asbuuc ama bilo ka hor aad ka heshay maantanaad ku dhahdo waan ku jeclahay taasi wado fiican maahan hadduu qofkaasi ku diido ama kugu adkeeyo adiga ayaa sababay haddii talooyinkan aad qaadato uma badana qofkaasi inuu kugu adkeyn doono tani waxay u baahan tahay samir iyo dulqaad haddii ay haddaba kaa tahay qiimahayga maa nacay soo adna jacayl kuma hayo iska fasax okay yaan hadalka idinkuu dheerayne let's go kow saaxiibo dhabaa noqda qaladkeena ugu weyn waxay tahay inaan dayacno fursado qaali ah 1000 times ayaan dayacnaa qofkaas nambarkiisa ama ciwaankiisa ayaan helaynaa waxaan si dhaqsiya kula orodnaynaa waan ku jeclahay horey waad samaysay haddaadan samayn laga yaabay inaad samayn lahaydba ma jirto waddo ka wanaagsan qofkaas inaad u noqoto saaxiibo dhow waxaad ogaan kartaa markaas noloshooda xiriir may leeyihiin wax waliba ku saabsan ayaad ku ogaanaysaa so waadna ogtahay soomahan saaxiibadu inaysan waxba kala qarsan adigu waxaa kuu fududaan doontaa faaro badan aad geli lahayd inaad sii ogaato 2 muuji dabacsanaan iyo weliba adeeg dabacsanaantu waxaa loo baahan yahay inaad muujiso markaad ogaato qofkan inuu dhibaato haysto ama u baahan yahayba garab adeeguna waxaa lagaaga baahan yahay markaad ogaato inay jirto carqalad ka hortaagan tusaale ahaan adigoo doonayay inaad noqoto maanta qofka raba inuu la sheekaysto waxaad aragtay qofkii qof kale waqti la qaadanayo way yar xanuun badan tahay laakiin adkaysi samee wiilow qoftu maahan jacaylkaaga ee waa saaxiibadaada gabaray si la mid ah adiguna maahan jacaylkaaga ee waa saaxiibkaaga oo keliya so waxaa loo baahan yahay waqtigan oo kale inaad muujiso adeeg 3 tusi sabab ay kugu jeclaan karaan su'aal ayaa jirta jacayl ma sabab ayuu ku yimaadaa mise sabab la'aan tusi waxay kugu jeclaan karto macnaheedu maahan lacagsi ama waxyaabo qaali ah u iibi no waa inaad tustaa ixtiraam garab inaad u tahay waa inay ogaadaan adiga dabeecadahaaga dhaqanka wanaagsan waa inaad la wadaagtaa noloshaada dhabta ah maahan inaad been ku shukaansato ama maahan inaad been ku akhrido taasi waxay dhaawici doontaa qalbiga qofkaas inta aynu ahayn carruurta waxaan inta badan maqli jirnay gabar waa lacag laakiin maahan sidaas gabar waa jacayl meeqaad aragtay adiga dad isku guursaday jacayl noloshuna ay ahayd mid iska yar adkayd don't believe that okay 4 ogow inaad tahay qofka u qalma horey masku dhahday uma qalmi yaa ku dhahay uma qalantid waxyaabahaas waxaa loo yaqaanaa self depression waan ka xumahay haddii aad nafsadaada dhibaatadaas u geysanaysid way mudan tahay in la jeclaado wayna u qalantaa inay hesho qofka ay u baahan tahay 5 maalmaha qaar birta ugu dhufo yacni ma fiicno laakiin wax badan ayay kaa fikirayaan ha koolgarayn ka aamus dhowr maalmood fikirka ayaa ku badanaya waxayna dareemayaan xiiso badan so qofkan hadduu kuu xiisaayo waxay tilmaantaa 75% inuu jacayl hayo number 6 dhiirigeli waqtiyadan iyo jabku yimaado qof waliba waxaa soo marta xaalado mararka qaar uu dareemayo murugo inay jab weyn ayadoona wax sababaha jirin markaasoo kale waa inaad garabkeeda ahaataa ama inaad garabkiisa ahaataa una sheegtaa wax walba in laga gudbi doono 7 waa inaad muujisaa jacayl steebkan waa steebka ugu dambeeya waa waqtiga loo baahan yahay inaad u dhawaato waa waqtiga loo baahan yahay inaad muujiso jacayl badan so waxay bilaabi doonaan iyaguna inay kuu soo dhawaadaan I hope inuu ku anfacay sidoo kale waan rajeynayaa dad badan ay ka faa'iidaysan doonaan nagu soo biir ka mid noqo saaxiibadeena muuqaalkan like sii wax badan ayay noo tahay inta muuqaalkan oo kale ku kulmi doono nabadgelyo guulaysta dhammaantiin